laba nin baa sheekaysatay oo odayaal ah oo Soomaaliya waayaha adduunka laga sheekaystay in baa wuxuu warniyo waliga masiibo ma kugu dhacdo markaas uu yiraahdo waabay masiibo igu dhacdo suu yir maxaa kugu dhacay nin waxa igu dhacay buu yiri wiilkayga curad oo kaligiisii ahaa baa inta bahal qaniinay biga dhig marka masiibadaas waa igu dhacday kii kala wuxuu yiri aniga waligay masiibo iguma dhicine waabay cirib isaart masiibo aniga iguma dhicin laakiin mar bay cirib isaart suu yiri oo maxaa kugu dhacay suu wuxuu yiri laba reer baan lahaa dhowr iyo 20 ilmoodna waa lahaa 200 iyo 300 oo geela waa lahaa ari ku neef gaariyana waa lahaa laba xaasna way joogtay maalinkii dambaan ka safra habeenkii baan ka dhaxay salaadii subax waagu markuu bariyay adoo nus saac meelahaas baan reerku meeshu degana ku soo beegma roob habeenkii daay marka waxaan imid buu yiri reerkii oo dhan oo xalay inta wiil ku dhacday hal qof oo nool iyo hal neef oo xoolaay nool aan ku jiro dhowr iyo 20 ilmood labadii xaas geeli arigi awrtii xataa dhimatay marka wuxuu yiri waxaan isku dayay xoolihii iyo saasay u jiifaan qoortay waxay ku hayaan macaash dhulka ku wada hayaan inaan midba barkiciyo wax nool inay ku jiraan saa ugu wareegay hal rati ah oo raroy ah oo geed ku xirnaa baa ii kacay buu yiri oo dhagii midha xalad dilaaceen qaraxii meesha ka dhacay baash xoolihii halkaas neef markuu aan rabo inuu ka noolsaa meydkii tiriyebiya dadkii baan fiirshay dadkii oo dhan waa meyd laakiin waxaan waayay labadii xaas mid kamid ah oo uur lahayd oo 9 bilood ahayd baan waayay shaadna mar roob baaday meelaha marmaray markii damaan u yimid iyadoo geed hoosti ku socsan waa fiirshay gabadhi way nooshahay ma dhiman iyadoo way socsan tahay ratii baan soo kaxaystay reeriyaan soo saartay gabadhi baan u keenay wuxuu yiri waa ku rara gabadhi baan u sameeyay meel aan oo darga camal ah baan saaray ratii baan la dhaqaaqay وانا سغالkeedi baa gabadha go'ay maalinko dhan baan wadaabo yir ratigi waa iska maqonayaa maskaxdeedu xataa caadi uma joogto goor casar iyo duhur dhexdooda hoos 8 saac iyo bar meelahaas baan wabiga ku imid buu yiri wabi meel maraan ku imid ayr baan inta gabadhina fool ba qabatay kaligay baana saaka xataa markaan soo baxay kama fakarin buu yiri gabadhan amay ugu foolataayo wax sakiin iyo midna ma wato wuxuu yiri mar alla markii gabadhii fooshi qabatay ratigi baan ka dajiyay wiil bay dhashay laakiin nasiib darro waxaan xudunta kaga gooyay mala geed baan inta fuulay bay xaleef ka soo goostay iyo xaleeftan kaga jaray xudunta waa nolol laga yaabo inay aad u adag tahay laakiin ninka ka sheekeynay waa nin caadi u sheekeynaya asagu waa ninka le balaaya ay saartay cirib ee aniga iguma dhicin waligeed balaaya wuxuu yiri markay gabadhii u mushay waxana afkana ma siin gabadhan waa wareersantay iyadoo dhanba nooc kale ay tahay waa gabadha xal wariiq ku dhacdo dadka oo dhan ka dhinteen waxaan afka u gasho cunta ma hayo ratigi baan bireeyay ayr baratiga neefka geela waxa ku jira kuruskiisa cad la yiri cad iska bisil oo bisayla la dhaho cadkii baan uga jeexay kuruska afkaan u gashay markaas indhaha kala qaad gabadhi markay fiicnaatay xoogaa indhihi kala qaaday oo cadkii cuntay baan iribu iyo ratigaan noo qalayhay ila meesha ma jiro umul baan ahay isbitaal baan 3 bilood ku jiray waxaas ma leh 3 bari ku jiray wixii ma leh baan iribu yiri oo nooga soo dhaamay ratiga intaan sii qalayo inta qaadatay jeegaan wabiga dar gabadhi mar alla markay tir wabiga aad u taabsiisay jeerigaankii baalkii jeegii yaxaas baa ku dhuftay markaas waxaan arkay jeegii cirka u duulay waa soo orday la tagi marka wiilkii raabaan ku soo laabtay hilib male marka qalitaan iyo u dhamaatay qofku awal hilibka u qaliyay gabadhay ahayd asagu nololba kuma jirin wuxuu ilmaha yar baan iska qaatay dharkii aan qabo dhanna waa u jeexjeexay ilmihii asagu ku duduuban yahay saa uu orday waxaan soo baxay qorraxdu sii dhacayso ari meel daaqaya wiilkii yara oo aan watay oo aan asna nafu ku jirin ila hooyadina ma nuugin noloshu waa nolol aan caadi ahayn baan ridii ugu horeysay oo irmaan afka u gashay mar alla markaan saa afka ugu gashay wuu qaawan yahay asagu ilmaha yarka wuxuu haystay maradu ku duuduubay ilmuhu ku duuduuba baa waxaan ku war helay bahal ulaho igu dhigtay kor baan u fiirshay mise gabar inaan ay uleynayso waxay tir balaayada reer argi dhex degtay maxaa saas markaan uu istaagay oo ayartay inaan qaawanahay bayse siidays way car 5 daqiiqo kadib waa kuwan odayaal dhan oo ornimo dhan oo xoog loo wada ordayo seefo iyo waramo iyo wato gabadha u qayl geyso tir balaaya ariga ku dhaxar qofkii ugu horeeyo aan arkay sadogay buu ahaa wiil oo gabadhii maanta la iga cunay dhalay arintii baan uga sheekay waa la kaxeeyay horta odayga baa maray saaray biilo ninkuu qaaway go'ay buu saaray bas waa la kaxeeyay wuxuu yiri guriga baa la geeyay oo gabadhay la dhalatay biyo uleysay wada odaygu markuu cuntay siyaasado ila hadlay muddo tagay
يوشيخ ينما سوك حيو قبل ولا يقوم يهريو همين كيبا أقل باليجي حد يربوي إن كان مركو شاكين أيوه دور يلا بعطن الموت يحاول ملايين على مركو ولا جاي دبعته يقوم لكن ما أنا كاسر عرف ساعتين